magacay waxa weeye Dr. Farxiye Jaamac Xuseen wuxuu yahay muddo ka hadlayaa cimilada ayaan ka hadlayaa cimilada maaragtay ama deegaanka marka deegaanka ayuu weeyaan marka deegaanka xumaada had iyo jeer ee problemku ku dhaco de waxa keenta cimilooyinka roob la'aanta laakiin roob la'aanta de waxba kooskareeya inagu aynu dhibaatada keenay xaqiiqdii dhirtii baan goynaynaa dhirtuna roobkay soo jiida oo ay keenta marka inagu dhirtii la harsan lahaa iyo dhirtii daawada ahayd iyo dhirtii cimilada soo jiidi lahayd hawada soo jiidi lahayd oo dhan de waad aragtoo dhuxul iyo ood lagu ooto daarad iyo dhuxul laga shida iyo yaa dhirtii dhammeed roobka soo hiidka soo jiidi lahayd daawooyin badanna laga heli lahaa midho badanna laga heli lahaa la cunaayo dee dadka sabab u noqday marka anigu waxaan odhan lahaa dhirta ha la daayo oo dhirta weliba ha la beero soomaad garan dhulka hoostiisana ha la qoto aqalka yar inta hadday 2 mitir bannaantay 2 mitir reer walba waa ku filan yahay hadday khudrad ku beeranayaan dherigooda dhan ugu karsamaya oo suu dhaqaalay ka helaya raggan kale dhuxusha shidaayana waxaan odhan lahaa anigu mashruuc kale oo waliba qaybta beeraha ah dawladdu ha u samayso